deeqdan lacageed uu maamulka shirkadda xawaalada Tawakal uu ku wareejiyay guddiga qaran ee gurmadka dhacdadii Zobe ayaa waxa ay gaarisay 18,337 oo dollar ayaa waxa laga soo ururiyay ganacsatada macaamiisha shirkadda xawaalada Tawakal taasi oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadkii ku waxyeeloobay dhacdadii qaraxii 14 Zobe ee magaalada Muqdisho maamulaha shirkadda xawaalada Tawakal ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cabdi ayaa ka warbixiyay deeqda lacageed ay ku wareejiyeen guddiga qaran ee gurmadka dhacdadii Zobe waxaan rabaa halkan inaan ku wareejiyo guddiga taakulaynta dhacdadii Zobe lacag dhan 18,337.5 sida ka muuqata jeega horteeda yaala lacagtaas waxaan ka soo ururinay ajansiyada Tawakal iyo macaamiisheeda awal horena uga qayb qaadanay wixii anaga ka shirkad ahaan ahaa laakiin lacagtan waa lacagaan hadda ka soo ururinay macaamiisha iyo wakiiladayada marka insha Allah culimadana waxaan ka rajayn doonaa inay hawshaas sidoodii ay u fulin doonaan Ilaahay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo kamid ah guddiga qaran ee gurmad dhacdadii Zobe oo lagu wareejiyay deeqdaas lacageed ayaa ka mahad celiyay lacagta lagu wareejiyay xawaalada Tawakal annagoo guddiga qaranka ee gurmadka Zobe waxay nagu wareejiyeen lacag tiradeedu tahay 18,337.5 waxaan leenahay jazaakumullahu khayr markii koobaadna ma aha ayaga iyo macaamiishooda ayaa lacagtaa soo diray waa xawaalada aan iskaashi iyo tacaamul leenahay oo marar badan lacag la soo diray ka qaadanay aad bay u mahadsan yihiin waxaan leenahay jazaakumullahu khayr meeshaad ka soo qaadeen wax ka khayr badan Allah idin geliyo miisaankiina xasanaadka yawm alqiyaamah Allah ka dhigo sharta oo dhan Allah idinkaga xijaabo ayaan leenahay aad baad u mahadsantihiin baan leenahay xawaalada Tawakal waxaa kaloo rabaa halkan inaan uga mahad celiyo lacag ayaduna nooga timid dalka Jarmalka ah oo tiradeedu tahay 3,646 dollar oo ayaduna na soo gaadhay waxaan leenahay barakallahu fiikum fi miisaani xasanaatikum Allah ka yeelo yaan leenahay waxaa muddooyinkan isa soo tarayay gurmadka loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay 14 bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2017 isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho